lagu hirtaanahay askari daacadanahay dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay marna dacarayaanahay cadow dila ayaa agaanahay dantaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaa marna dacarayaanahay cadow dila ayaa agaanahay dantaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaa deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagna dowladniman u taagnahay deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bishii 8aad 2020 waxaan isugu nimid shirka golaha amniga ee gobolka Bari waxa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo gudoomiyaasha degmooyinka 6 degmo ee gobolka Bari degmada Boosaaso degmada Isku Shuban degmada Qandala degmada Carmo degmada Ufayn iyo degmada Balidin 6 gudoomiye degmo iyo 6 taliye saldhig iyo dhammaan saldhigyada ka howlgala Boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxa la isugu yimi maantay gobolka xafiiska gobolka halkaas ayaana shir ku galay waxaana shirka gudoominayay gudoomiyaha guddiga amniga gobolka Bari mudane Cabdisamed Yuusuf Maxamed waxa laga wada hadlay wax badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ilaa degmo ilaa tuulo waxaan go'aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arrimood ilaa 5 qodob baa ka soo baxay shirkaas 5 qodob oo shirka ka soo baxay waxa kamid ah qodobka koowaad xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah qodobka labaad wada shaqaynta hay'adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka qodobka saddexaad xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amni darrada ku howlan qodobka afraad dabargoynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabargoynta in la dabargooyo ayaxa iyo xaalufinta deegaanka qodobka shanaad dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca Puntland meel kasta ay joogaan sidaa daraadeed waxaanu rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku ay ka cawdeen qaarkood in baahiyo ay jiraan in baahiyaha amni ee degmo kasta la dhameystiro haddii ilaahadmo oo aan u gudbino boosashanada ay leedahay iyo hay'adaha ku shaqo leh degmo kasta wixii ay u baahan tahay oo baahi amni ah hadday gaadi tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday tayeen tahay iyo hadday tababarataaba waxaanu ka ku ballanay inaanu gudbino oo u gudbino hay'adaha shaqada ku leh si loo dhameystiro waxaan rabaa oo kale inaan sheego sidaa daraadeed shirkanu haddii ilaahay idmo wuxuu dhici doonaa bil kasta mar isagoo ka dhici doona degmooyinka degmad kasta markii loo baahdo annagu gobol ahaan waxaanu go'aan ku gaaray degmo kasta oo ka mid ah degmooyinka 6 gobol in aanu mar isugu tagno 6 degmo ka mid ah inaanu mar isugu tagno oo shirkaasu uu ka dhaco haddii ilaahay idmo hada wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.